بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون داوديال كسو دواده برنامجka layaabka dunida barnaamijka layaabka dunida waxaa soo saara Ashraf Cabdulbaasid anigoo Falastiin Khaliif Bifey ayaa halkan idin kala socodsiya hadahan oo kale ayaad ka daawataan Raja TV barnaamijka qodobada maanta aan idinkugu hayno waxaa kamid ah nin 70 sano darawal ahaa balse leesin iyo caymis aan toona lahayn waxa uu ku sigtay in la maxkamadeeyo qodobada kale ee barnaamijkeena aad kaga bogan doontaan waxa kamid ah tartanka foolxumada ee Zimbabwe oo la qabtay waa hadda tartanka foolxumada barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan daawadayaal qodobada kale ee barnaamijkeena ku xusan waxa kamid ah bulshada caalamka ugu cimriga dheer oo la ogaaday waqtiga ay geeriyoonayaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamijkeena inta uu hawada ku jiro mar kale iyo barnaamijka layaabka dunida waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan qodobka ugu horeeya ee barnaamijka hadii aan soo qabto waxa uu noqonayaa nin 70 sano darawal ahaa ayaa la leeyahay 70 kaasi sano ee uu darawalka ahaa leesin iyo caymis toona ma aanu lahayn booliska ayaa baaritaan ay sameeyeen ku ogaaday ka bogasho wacan daawadayaal ninkan oo ay booliska ku joojiyeen magaalada Nottingham ee Ingiriiska ayaa u sheegay askarta inuu darawal ahaa in ka badan 70 sano isla markaana uu baabuur ku waday ruqsad la'aan iyo caymis la'aan arintan oo booliska ay la yaabeen ayaa waxa ay dhacday Arbacadii kadib markii saraakiisha oo roonda caadi ah ku jiray ay darawalka ku jira da'da 80 ay ka qabteen meel baabuurta la dhigto oo ah suuq laga dukaamaysto ninkan oo dhashay sanadkii 1938 ayaa u sheegay in aanu haysan leesinka baabuur wadida iyo caymiska toona uuna sida baabuur ku waday tan iyo markii uu 12 sano jir ahaa tan iyo xilligaasna uu iska ilaalin jiray in ay boolisku joojiyaan saraakiisha booliska Nottingham ayaa sheegay in ninkani uu waday baabuur yar oo 2 albaab leh isaga oo ku sugnaa meel u dhow Tesco Extra Bolwell Arbacadii iyaga oo weydiiyay sharcigiisa hadal ay Facebook ku soo qoreen saraakiisha ayay ku yiraahdeen ma rumaysan karno markii aanu la kulanay darawalkan oo dhashay 1938 ee ku hadlay in uu waday baabuur leesin la'aan iyo caymis la'aan ah tan iyo markuu 12 sano jir ahaa oo uuna si aanay ugu suurto gelin weligiis boolisku in ay joojiyaan wadista bilaa sharciga ah waxaa lagu mutaystaa ciqaab u dhaxaysa 3 ilaa 6 nooc oo ciqaabood taas oo ku xidhan nooca dambiga waxa kale oo ay damaanad qaadi kartaa ganaax aan xad lahayn haddii darawalku aanu lahayn caymis booliska waxa ay awood u leeyihiin inay qabtaan baabuurta aan caymiska lahayn kiiskan saraakiishu ma aanay sheegin ciqaabta ninkani uu mudan doono waa tahay daawadayaal in aad ka bogateen ayaan filayaa sheekadaasi xiisaha badan aan soo qabto qodobkani ku xiga waxa uu noqonayaa tartanka boqorka foolxumada sanadlaha ah ee Zimbabwe oo la qabtay daawadayaal inta badan waxa aad maqashaan tartamo kala duwan sida tartanka quruxda tartanka kubadda cagta tartamada kala duwan markaasi xirfadaha kala duwan lagu tartamo sida suugaanta gabayada iyo xirfado kale lagu tartamo markani waxaan idin soo wadaa sheekada tartanka foolxumada ee sanadlaha ah ee ka bogasho wacan inta badan waxa aan maqalnaa tartan kala duwan oo dunida iyo dalkeena intaba ka dhaca kuwaas oo lagu tartamo quruxda hibada suugaanta iyo waxyaabo kale oo tiro badan laakiin aad ayay u yar tahay in aad maqasho tartanka qofka ugu foosha xun ka ugu doqonsan iyo qofka ugu aqoonta yar waxaana ay inta badan sabab u ah in aanay aadamuhu jeclayn tilmaamaha xunxun ama liita ee hoos u dhigaya shakhsiyadooda waxaa dalka Zimbabwe ee koonfurta qaaradda Afrika ku yaala sanad kasta lagu qabtaa tartanka ninka ugu foosha xun dalkaas oo lagu soo xulo qofka laga dhex doorto tartamayaal aad u badan
oo ku loolama. Tartankan oo dalkaas laga bilaabay sanadkii 2010, waxaa markii ugu horreysay ka soo qayb galay 2 nin oo kaliya. Si degdeg ah ayaana uu ku soo dhammaaday, oo mid ka mid ah ayaa loo aqoonsaday boqorka foolxumada dalka Zimbabwe, waxaana sidaa loogu geliyey taajka tartanka uu ku guuleystay. Wasaaradda tartanka ee dalka Zimbabwe ayaa si tartankani uu u noqdo mid dad badani ay ka soo qayb galaan, waxa ay duldhigtay lacag xaddigeedu badan yahay marka dalkaas loo eego, oo abaalmarin ah inay siisay ninkii ku guuleystay tartankii koowaad ee ugu horreeyay dalkaas. Wixii ka dambeeyana waxaa bilowday in dad badan oo foolxumo isku tuhmaya ay ka soo qayb galaan, laakiin 4tii tartan ee hore ayuu si dhib yar dhammaantood ugu guuleystay nin lagu magacaabo waa William Masvino. Balse sanadkan ayaa lagu soo kadiyey oo waxaa ku qabsaday nin kale oo lagu magacaabo Mason Kera, kaas oo wareeg dheer kadib loo aqoonsaday in uu yahay boqorka foolxumada dalka Zimbabwe ee sanadkan. Guddiga garsoorayaasha tartanka, ninka ugu foosha xun Zimbabwe, ayaa shaaciyey in Mason Kera oo 42 jir ah uu ku guuleystay tartanka sanadkan. hagaag waa tahay daawadayaal inaad ka bogateen waan filayaa qodobkaasi xiisaha badan. aan soo qabto qodobkaani xiga waxa uu noqonayaa bulshada caalamka ku dhaqan ee markaasi la ogaaday in ay yihiin kuwa ugu cimriga dheer. sidoo kale waxaa la leeyahay waxaa la soo ogaaday waqtiga ay dhimanayaan. bulshadani waxa ay ku nool yihiin qaybo ka mid ah dalka Pakistan. ka bogasho wacan daawadayaal. Waqooyiga dalka Pakistan, dooxada Hunza ee ku taala buuraleyda Karakoram, waxaa degan qabiilo aan timahoodu cirraysan, isla markaana cimri dheer oo aad caafimaadkoodu u sarreeyo, xanuunkuna aad ugu yar yahay. Waxaana la yaab leh in bulshadan aanay taariikhda noloshooda weligood aanu qof kaliya ku dhicin xanuunka kansarka. Waxaa kale oo jirta in dumarka qabiilkan ee da'doodu tahay 65 sano ilaa 70 sano jir, wejigoodu weli uu u muuqdo inay yihiin carruur, isla markaana ay weliba da'daasi ku dhalaan carruur. Bulshadani waxa ay ku hadlaan luqadda Borojoskey, waxaana la sheegay in ay yihiin farac ka mid ah ciidamadii Alchesky Dar, kaas oo yimid gobolkan qarnigii 4aad. Dadka deegaankani dhammaantood waa Muslimiin, dhaqankooduna kama duwana shacabka Pakistan ee kale. Tirakoobka bulshada deegaanka dooxada Hunza waxaa lagu sheegay 87,000. Nidaamka noloshooda ayaa ah mid gaar ah, kaasi oo sababay in dhallinyaranimadooda ay noqoto mid joogto ah ama ku ahaadaan dhallinyaranimadooda. Laakiin taasi waxaa sabab looga dhigaa raashinka ay quutaan, kaasi oo ah khudaarta, darayga, midhaha, caanaha, bedka iyo lowska. Midhahan ay quutaan ayaa la sheegay in ay ku jiraan maaddooyin fayraska kansarka difaaca. Dhinaca maydhashada jidhka, waxa ay isticmaalaan biyo qabow, inkasta oo sanadka intiisa badan deegaankoodu uu yahay mid qabow. Maalin kasta waxa ay lugeeyaan 15 ilaa 20 kiiloomitir, taasi oo ah dhaqan ay leeyihiin. waa tahay daawadayaal waan filayaa inaad qodobkaasina ka bogateen. waxa uu ahaa qodobkii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena. barnaamijka inta uu hawada ka baxaya waxaa iga caawinaya Cabdiqani Cabdulaahi Maxamed dhanka kaamirada iyo editinka, aniga oo Falastiin Khaliif Bifeya ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo barnaamijkaani mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.